بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبي الكسر وهذا برنامج كنا وقال كاب برنامج ثاني وينقر في النور بوجاكت هو واحد يقص كوبي دورنا برنامج كنا ديجانا هم جلسي هاي حكمي ديجانا هني حكمي وديجانا يركو كوبن وليستيت واتن بوجني وعوك هذلا إسكات كانتا أبى كنترول كنفتا يصير أقولي قف كسلو حكمي لها دم عفت نيسان إكو عبوران sidoo kale waxa uu noo bilaabmayaa iska adkaanta doorka ay ku leedahay guusha iyo horumarka nololeed iyo inaanay sinaba suurtagal u ahayn inaad ku gaadho adiga oo aan controlin doonidaada iyo damacaaga. hadaba si kooban ayaa waxaynu isku reereegi doonaa iska adkaanta naftu iyo waxay tahay aba xalqada qaad lagu dhahdo self mastery. si kooban haddaynu sheegno waa naftaada oo aad xeel dheer u noqoto ترنسي وحاولي كوشو waxay suurtagal tahay markaad heer ku noqotid laabla kacaaga hamudhaada iyo dooristaada. iska adkaantu waa furaha nolol mugle haddii la waayana ma jiri doonto guul waarta. sidaas waxay iska adkaanta ku qeexay aba iska adkaanta iyo xakamaynta nafta ku tilmaamay Brain Trace oo ah qoraaga buugga No Excuses The Power of Self-Discipline. Albert Harvey oo ahaa qoraa Mareykan ah ayaa isaguna yiri iska adkaantu waa awoodda aad ku sameynaysid waxay tahay inaad sameysid marka ay tahay inaad sameysid jeclo ama jeclaan. murti Soomaaliyeed waxay tiraahdaa in aan hana naftiisa halis ku daaqaya. mareegta IQ martikiisa ka faalato kobca qofnimada waxa ay iska adkaanta ku qeexaysan. iska adkaantu waa karaanka aad ku maamushid doonistaada iyo laabla kacaaga si aad u tahay natiijadka jidkaad ku gaaraysid kamera dhalinta iyo kaaga waa in si joogto ah oo maalinle ah u sameysid fal taasi oo ka kaalmeynaysa inaad gaadhid halka ay laga maarmaanka tahay iyo jidooyinka ku baritaaraya ee ku gaarsiinaya halka aad u socoto. intaas waxaynu dhan barnaamijkeennii ogaalkaab oo aynu caawa ku soo qaadanay dhigana yar hamigiisu yahay xakame oo ka koobnaa bog dhiganahani waxaa ku jira daraasaad cilmiya وصل الميليسن لوفري أيام بدن أيد كفاية كرتا أد بدو ما سنتي لمانتين حتى أظهر نومي هي أد بدو ما صدقها حتى نقول صوتها هنا في الودا يسير تا يسبسكرايب تين تونسي بدو ما سنتين والسلام عليكم.